gudoomiyaha gobolka Azerbaijan ee Iiraan ayaa la dharbaaxay intii ay socotay xafladda caleemasaarka. daqiiqado yaab leh oo kaamirooyinka ay qabteen ayaa gudoomiyahan cusub ee gobolka Azerbaijan ee Iiraan waxa uu weeraray xubin ka mid ah dadkii dhageysanayay. gudoomiye Abedin Khoram oo khudbadii caleemasaarka jeedinayay ayaa nin si degan masraxa ugu socday dharbaaxay. muuqaalka Master Khoram waxaa la arki karaa isagoo xoogaa hakaday ka hor inta uusan riixin ninkii dharbaaxay. ninka dharbaaxada geystay ayaa sidoo kale riixaya gudoomiyaha, laakiin dagaalka si degdeg ah ayaa loo joojiyay waxaana ninka laga soo kaxiyay masraxa. raadiyaha dowladda Iiraan ayaa baahiyay in ninka dharbaaxay gudoomiyaha uu ka tirsan yahay ilaalada kacaanka Islaamiga oo ah farac ka tirsan ciidamada qalabka sida Iiraan. waraysi uu siiyay warbaahinta dowladda, Master Khoram waxa uu ku sheegay in ninka ka tirsan ilaalada kacaanka Islaamiga ee dharbaaxay maxaa yeelay waxa uu ka xumaaday in talaalka xaaskiisa ee COVID-19 uu nin maamulo. Master Khoram laftiisa waxa uu ahaa la taliyaha ilaalada kacaanka Islaamiga ee gobolka ka hor inta uusan madaxweyne Ibrahim Raisi u magacaabin horaantii toddobaadkan inuu noqdo gudoomiyaha gobolka. arrintan ayaa si guud caalamka looga hadalhayaa. si gaar ah dhacdada gobolka ay ka dhacda ayay dadweynaha isla dhex marayaan in arrinkan uu keenay maseer. haddaba daawada inta badan dadka Soomaalida ah ayaa waxa ay yiraahdaan in maseerka ragga uu ka kulul yahay maseerka dumarka. haddaba adiga daawanaya ma aaminsan tahay taasi, maadaama ninkani dharbaaxay gudoomiyaha gobolka Azerbaijan ee Iiraan uu maseer dartiis u dharbaaxay gudoomiyihii gobolka?